nagala socotaan waa barta YouTube-ka ku leenahay Happy Films codsigii aad naga dalbateen ahaa inaad barnaamij ama madadaalo gobolka Awdal ama magaalada Boorama inaan ku soo kordhinaan oo aad naga codsateen aad iyo aad ayaan maartay idinku filinay barnaamijkii waa maalinkii labaad oo ka qabsoomayo magaalada Boorama dhexdeeda taasi oo fikrad duwan iyo su'aalo kala duwan aan maartay asxaabta la wadaagayno taasi oo ka iman karta aqoon isweydaarsi aan anagu iyaga wax duubayna aan wax ka faa'iidino iyaguna waxay naga faa'iidayaan mataqaanaa idinkuna waxa dhiirigelin ama mataqaanaa aan moral nigu helayna inaad subscribe-ta iyo like-ta iyo comment-iga aad nagu cimaamadaan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin hadda waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii kaftan iyo qaraaxo ee inii soo bandhigtay bahda Happy Films marka waxaad leenahay aanay loobina haddana waxay la jooga wiil kamida dhalinyarada ku naqan magaalada Boorama kaasoo in la falanqeyn doona ama afwaraagtinimadiisa ka dhiiban doona su'aaliyo hal xiraalaha dhalinyarada la wadaaginay walaal ku soo dhaw barnaamijka kaftan iyo qaraaxo wadaway walaal waayay walaalo magacaaga sheegaya magacaaga Cismaan walaal Cismaan waxaan ku leeyahay ma taqaanaa su'aal waxaan ku weydiinayaa dhalinyarada la soo wadaaginay su'aashaas oo koodhanaysa dhakhtar iyo iskuul ayaa isku ag yaala marka dhakhtarkii iskuulkii dab ayaa ka kacay marka ambulance midkay labada hor baqtiin lahayd dhakhtar iyo iskuul baa isku garab yaala marka dab baa kacay marka ambulance midku gurman lahaa anu rayga waxaan leeyahay wuxuu gurman lahaa iskuulka waayo iskuulku waa ka dhakhtarka laftiisa soo saaraya dhaqaatiirta laftooda waa sax hada su'aashan ku weydiiyay aad ugu fiirso waxaan guuri iskuul iyo dhakhtar gaas ku yaala dab ayaa ka kacay ambulance labada mid ka hor baqtiin lahaa markaan marka rayigayga Soomaalo waa dhakhtar iyo iskuul labadiiba bulsho waa laba astaamadood bulshada u taagan marka anigu haddaan xataa kii ambulance waday ahaa waxaan u gurmanayaa iskoolka laftiisa iskoolka aan uga jeedo inuu iskoolka laftiisa ay dhakhtarka iyo madaxweynaha iyo waxba soo saariyay tan kula hadlayna kaftan bay hayd ciwaanka iloobin in kaftan iyo qaraaxo su'aashan ku bedelayana waxay noqonaysaa dhakhtar iyo iskuul ayaa isku ag yaala sax marka dab ayaa ka kacay ilaahay naguma keeno marka ambulance labada mid ka hor baqtiin la muxuu dab ka kacay dhakhtar iyo iskuul ayuu dab ka kacay marka ambulance labada mid ka hor baqtiin la dhakhtar iyo iskuul iskuul gaaba gubtay muxuu ahaa dhakhtarku ayuu baqtiin la waa sax dadsi xanuunsanaya qaar haday doonaan si gubtay bay ku jireen si gubtaan baa doonaysa marka waa sax aad iyo aad ma santahay najiib asxaabta qaaliga wali halkaan nagala socotaan barnaamijka ka daadahinayna waxa weeyaan barta YouTube-ka aan ku leenahay Happy Films bahda Happy Films oo idin soo diyaarisay barnaamij la magac baxay kaftan iyo qaraaxo taasi oo maartay bulshada ama dhalinyarada magaalada Boorama ku dhaqan oo fikradooda la wadaagi doono oo ma taqaanaa anaguna iyaga waxaan ka faa'iideysano ay annagana wax naga faa'iideystaan markaas waxaad leenahay annagana waxa dhiirigelin oo ah inaad subscribe-ta like-ta comment-iga share-ta intaaba inaad nagu cimaamadaan waayo waxaan wax ku nahay idinka weeyaan marka intaad noo yar qoysana noo radisaan noo yareeyo dar ilaahay subscribe-ta noogu saaro walaal ku soo dhaw barnaamijka kaftan iyo qaraaxo waa ku dhawahay walaal macaan magacaygu waxa weeye Maxamed Yaasiin Ceegaag ama Ceegaag aad iyo aad baan ugu dhawahay waaye Yaasiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay laakiin Yaasiin caadi horta marka koobaad iska dhig waxa lagu mudaa sidii qof ciyaal badan soo eriyadeen oo ma taqaan gabigiisu dhididsan adigoo fresh oo su'aashaadana ka fiirsanaya marka koobaad caadi iska dhig baan ku leeyahay aad iyo aad maanta dhan wali baacanay soo garatay waxaan ka gartay kabahan aad xidhan tahay iyo in suusada ilaa hantan kugu furan waxyaabahaasaan ayaan ka gartay in lagu soo baxsanay waa gartay haye baraanka ka baxo su'aasha weydii waxaan intaasina kaftanay ahayd waayo barnaamijkan ku gadab jirnaa ayaa ah magaciisa uu yahay ama ciwaankiisa uu yahay kaftan iyo qaraaxo inta hadan kaftan kaga imaano waxaan ku leeyahay xiraad iyo laaqan maxaad u taqaanaa xiraad waxaan u aqaanaa xoolaha inta guriga laga kaxeeyo la geeyo meel kale oo ma garanaysaa sida geel oo kale lagu sameeyo xiraad sax laaqanna wallahi su'aashaas taas aan hadda ma garan karo laakiin xiraad waxaan u aqaanaa geel laga kaxeeyo xaafad iyo dhalinyaro iyo wiil dabadhoon iyo odaygu kaxeeyaan oo meel kale aan guriga ahayn keeya sax waa kaas wuxuu mahadsantahay walaal macaan sax way aad iyo aad mahadsantahay Yaasiin saad uga soo qayb gashay barnaamijka kaftan iyo qaraaxo haddaan kugu baadbedelo su'aashaas waa isku dayday aad iyo aad u fiican tahay su'aasha ama jawaabta waxaad ka filan doontaa channelka barta YouTube-kan ku leenahay Happy Films dhakhtar iyo iskuul ayaa isku ag yaalay kadib dab ayaa qabsaday marka ambulance-ku labada mid ka hor baqtiin la dhakhtar iyo iskuul ayaa isku ag yaala marka ambulance-ku labada mid ka hor baqtiin la wuxuu hor baqtiin lahaa iskuulka sababtoo ah iskuulku wax ku jira dadkii dhakhtarka la geyn lahaa صح دكتورك محل دكتور لقيا مركو هوري إن دتك اللي بتبادية سوما ها
waa kaasaas weeye bas aad ma santa yaasiin haddana waxa ila joogtaa gabadh kamid ah dhalinyarada ku naqal magaalada Boorama taas oo weydiin doono su'aalaha xilalaha ayaan weydiinay walaalka soo dhawo barnaamijka la magac maxay kaftan iyo qaraax dhawahay walaal walaal adiga magacaaga ku bilaabay ayaan xasan cilmi waxaan ku leeyahay su'aashan dadka weydiinaya waxay tahay ilaahay naguma keenay haday maartaqaan iskuul iyo dhakhtar ayaa isku ag yaala marka iskuul iyo dhakhtarkii dab ayaa ka kacay marka ambalaasku mid ku baqtiin la labada dabka mid ku baqtiin la ambalaasku labada isku day dabka waa sax waayahay ayaan aad u maasantahay saad uga soo qayb gashay barnaamijka la wacay kaftan iyo qaraax ayo walaal ku soo dhaw barnaamijka kaftan iyo qaraax waan dhawahay waayo walaal magacaaga saddexan magacaygu yaasiin maxamed daahir yaasiin waxaan ku leeyahay xiraad iyo laaqan maxaad u taqaanaa haddaad waayo aragnimadaad ka dhiibato xiraad waxaan u aqaanaa cashada laaqanada shurada laaqan u taqaanaa horta marka koobaad caadi iska dhig gebigaaga waxa tahay qof xanaaqsan oo ma lagu soo dilay walaal soo soo riiday casaan baan hayaa ma ciyaar baad ka soo baxday ciyaar baa casaan baan hayaa waxay ciyaar baa asaas waa sax waayahay yaasiin aad u maas magacaygu waxa la yiraahdaa Mustafa Maxamed Axmed Xuseen waa sax Mustafa aad u maasantay ku soo dhaw barnaamijka kaftan iyo qaraaxo waan dhawahay waad mahadsantihiin waa sax su'aasha haday noo bilaabaan ku weydiinaya maal xiraalaha xiraad iyo laaqan maxaa u taqaanaa waa quraaci cash waa quraaciyo casho صح laakiin inaad xanaaqsantaa lagu mooday caadi ma yoo faraxsan way aad ayuu maadsan yahay waa sax adna haddana waxaan la joogaa wiil ka mid ah dhalinyarta ku dhaqan magaalada Boorama taasoo isna la wadaagi doono ma taqaanaa way aragnimada ama fikirku ka dhiman doono su'aasha weydiin doono walaalka soo dhaw baan ku leeyahay adiga magacaaga sheegay walaal Axmed Ibrahim Yusuf Axmed Beerdhay magacayga Axmed Ibrahim aad u maasan tahay ku soo dhaw barnaamijka kaftan iyo qaraaxo oo ku dhawahay waa sax xiraad iyo laaqan maxaa u taqaanaa xiraaqi laaqan quraac iyo qado ما هو بتاع ويا هذه السؤال شو قويديني واحد هاي إلهي نقوم كأنه حطوا سكول يو نختار سكول يلا أيو طبقة كعي مركا أمبلاس طلاب هذا متكهر بختين لي سكول يو نختار أيو طبقة كعي مركا سكول هي نختار كم متكو أمبلاسكو بهر بختين له هذا رأي كدي بتوحنا نقول لها نختار كم مهم ويا يا ما صنت هاي ويا هذا الله حكولك سر برنامج الله ما قاعد بحي كفتن يقرأ أقول يا ولا البرنامج كفتن يقرأ وأنا أديكم مقعاقة مارتي مقعاقة استحن تدوينها أو شيء يا ولا المقعاق مقعي هو أيمن إبراهيم عبدي أيمن وحى أنك بحضيهان حنا قصو يرجع دي إناد هبين كي شارك يرشيدو أما ير cilada yar leedahay taasi maxaad ku leedahay asxaabtaada uga falcelinaysaa su'aal caadi ah waxaan naga dayo waxaan ku leeyahay xanaaqin barnaamijka ciwaankiisa ayaa waxa uu ahaa kaftan iyo qaraaxo marka barnaamijka ciwaankiisa ay loo kaftan iyo qaraaxo ayuu kala baxay ayuu sax waxaan ku weydiinayaa su'aashan ku bilaabayaa iskuul iyo dhakhtar ayaa isku ag yaalay kadib dab ayaa qabsaday marka ambalaasku labada mid ka hor baqtiin lahayd wuxuu baqtiin la ambalaasku iskoolku ambalaasku baqtiin la waa sax ayman aad iyo aad ayadu maasan tahay qaabkaad uga soo qayb gashay barnaamijka laga maxay kaftan iyo qaraaxo waxaan ku leeyahay walaalkii soo dhawow barnaamijka ay idin soo bandhigtay kooxda Happy Films oo barnaamijkaas ay ugu tala gashay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boorama kaasi oo barnaamijka loogu magac daray kaftan iyo qaraaxo walaal waxaan ku leeyahay ku soo dhawow barnaamijka kaftan iyo qaraaxo ugu dhaweey walaal waaye adigoo magacaaga ku bilaabaya walaal asxaabta magacaagana la wadaag maxamed farax محمد محمود فرح waxaan kula ku soo dhawo barnaamijka kaftan iqraax waan ku dhaweey walaal maxamed waa magacaaga ayaa igu yar adkaaday marka magacaaga maxaa ka qaldan walba magacaaga noo yarsax maxamed farax maxamed waxa dhaliil ama ma taqaanaa cilad asxaabta inooga ka soo gudbisay in ma taqaanaa aad ma taqaa kubadda markasto la ciyaaro aad kala baxsato garoon kasto aad maraysan kubadda kala baxsato marka arinta asxaabta maxaad kala leedahay balada u jawaab way ku adeeg ku sugayeen sideen acmulo baxsad baash garoon iyadoo kubad laga ciyaarayo ayaad ag maraysaa kubaddii ayaad la baxsataa baa la yiri ninka maxamed marka bal maxaa ka jira arinta waxa soo wax dabeecadaha kamid ah wax dabeecadaha kamid ah asxaabta aad iyo aad mahadsantiin dhammaantiin barnaamijka waa kaftan iyo qaraaxo ciwaankiisa uu yahay inta ma taqaanaa kaftan iyo qaraaxo haddaan ka imano su'aalaha caadiga aan soo gudbaynaa walaal waxaan ku leeyahay xiraad iyo laaqan maxaa u taqaanaa maxamed ya xiraad iyo laaqan maxaa u taqaanaa xiraad iyo laaqan maxaa u taqaanaa waa ninkaasoo naga gashaday iska tegey haddana waxay ag taagan
مسؤولية كنا قبل قبل كأوضل أمام مقالة بورا مسؤول كنا قنا كنا قلايا يجوا شوجا مركا واحد كله يا ولا الكسر ده برنامج كلا ما قاب حي كفتن يقرأ وهي وكش له وهي كفتن يقرأ حي هرت محاضة كفتن يقرأ هل كهذه وإيجا مركا كوبات واحد كله يا وديار فينين سنت هاي هذه هذا كان وير الدشينية ما تقنا ما قاعنا أصحاب تلو ذاك مقعي وحال بوبال بوبال بلغرا بوبال مكيل قاعد حري مسوا بوبال فرسمي سنبا بوبال باني قال ما هي بوبال دنتل بوبال دنتل متي لكن بوبال بلغرا بلا يراهدا وازح بوبال كسر ده برنامج لما قاب حي كفتن يقرأ وان كدونه واي سؤاشان كويديني ayaa waxay tahay dhakhtar iyo iskuul ayaa isku ag yaalay dab ayaa labada hal mar wada qabsaday ilaa inoo ma keeno marka ambulance iskuulka dhakhtarka mid ku hordamin la maxaa tiri bal ku celi marka dhakhtar iyo iskuul ayaa isku ag yaalay kadib dab ayaa qabsaday marka ambulance labada mid ku baqtiin la iskuulku baqtiin la waa sax aad iyo aad ayaad u baahan tahay walaal ku soo dhaw barnaamijka magac baxay kaftan iyo qarax way ku dhawaysaa way adigoo magacaaga sheegaya admidalik faaraxadan ku magac dheer dhiiga gaar ahaan kala xafada jarka magaca hore waan xiftii kari way dhiiga qowda baa tiri magacaaga wala la igu ciliyo maadsan walaas waa ku celinaya saaxib banaanay sidan keenay magacaaga mid uu igu cili kayf waan qabsanay anigu admidalik saaxib admidalik aad ayaad maadsan tahay horta marka koobaad admidalik waxa xan ama maaragtay cilad ama tabasho ay asxaabta ama bulshada nagu soo celisay ayaa soo gaadhay ayaa inaad habeenkii xaafadaha yar shiishido dadkan aad yar dhirbaaxaad yar xala dhacdid bal arinta dadweynaha ku qanci bal waxa aad ka tiraado xaafadaha shiidano asxaabta anaga committee noogu soo reebtay ninka Cabdi Maalik xaafadaha ayuu habeenkii shiida habeenkii xaafadaha shiida xaafadaha waa aad iyo aad ugu maasan tahay qaabka xaafadaha u shiido go forward baan walaal ku leenahay barnaamijka waa kaftan iyo qaraxa iyo la magac baxay inta hore hadan kaftan asxaabta ka yimaado chari iyo wax la shiiday ma jiro ninka Cabdi Maalik baa la dhaanaysiisana waa dhiiga soo hore noogu soo sheegay halka kaftan hadana ka yimaano su'aalihii ayaan maaragtay aan u sii guda galaynaa Cabdi Maalik waxaan ku leeyahay dhakhtar iyo iskuul ayaa isku ag yaalay dab ayaa qabsaday iskuulkii dhakhtarkii marka ambulance-ku midkee ay hor baqtiin lahayd maxaa tiri su'aashiga soo celbal waxa guuri iskuul iyo dhakhtarka isku ag yaalay kadib dab ayaa qabsaday iskuulkii dhakhtarkiiba marka ambulance-tu labada mid ka hor baqtiin lahayd ambulance-ku marka labadaba wada qabsaday mise wada qabsaday labadaba uu qabsaday laakiin dadba labadaba ku jira Soomaha marka ambulance-ku labada mid ka hor baqtiin lahayd dhakhtarku ayuu baqtiin la waa tahay haddana waxa ila jooga wiil kamid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boorama ma taqaanaa waxaan weydiin doonaa su'aalaheennii aan horay asxaabtaan u soo weydiin jirnay walaal ku soo dhawow barnaamijka kaftan iyo qarax bismillaahir rahmaanir rahiim waan ku dhawahay anigu magacaygu maxamed cabdi yahay ku magac dheer cawaale waan dhawahay walaal baan kula su'aasha weydiin hadda waa sax aad iyo aad u maasan tahay cawaale in adeerkiisa walaalkiisa ka yar baa tahay ruuxaantii magacun baa kulmay dameeraha meel ma wada qafarta iska daayay waa sax waxaan ku weydiinayaa su'aashaas oo xiraad iyo laaqan maxaa u taqaanaa waaw xiraad iyo laaqan ma tiri xiraad iyo laaqan Allahu akbar de su'aal waxaan ku madaxayga in baad weydiisay de baloos ku day qoodhay xiraad isku day xiraad iyo laaqan de waxna wax laaqan waxna wax xiraad lagu wado ma garanaya daanu qoodhay xiraad aad iyo aad ma santa qaabkaad uga qayb gashay barnaamijkan haddana waxa ila jooga wiil kamilada dhalinyarada magaalada Boorama ku dhaqan ka soo weydiin doono su'aaliyaha xiraalaha ee dhalinyarada magaalada aan la wadaagaynay marka walaal ku soo dhawow adigoo magacaaga ku bilaabaya magacaygu waa Saacid Jamaal Axmed waa sax Saalim aad iyo aad ma santahay ku soo dhawow barnaamijka la magac baxay kaftan iyo qarax waa sax su'aal waxaan ku weydiinaa dhalinyarada magaalada Boorama maanta aan la wadaagaynay taasoo hal xiraala ahayd ilaahay naguma keenay dhakhtar iyo iskuul ayuu dab ka kacay kolka ambulance-ku mid ka hor baqtiin la ambulance waxa baqtiya atma xasan saaduniyo hadda halkaad nagala socotaa waxa weeyaan barta YouTube-kan ku leenahay Happy Films booqo oo subscribe tii like tii comment-ga nagu cimaamad haddaad nagu cusub tahayna calaamad dheer gidaarka soo ku dhufo haddii aad marka hore noogu sii jirteen aad iyo aad ayaan mahadsan tahay fadlan noo sii share garay uma ku leenahay like tana dhiiri gelin nooga dhig hadda waxa nala jooga ma taqaanaa wiil kamid ah dhalinyarada magaalada Boorama kaasi oo ku soo dhaweyn doona barnaamijkeena la magaca kaftan iyo qaraxo ku soo dhawaala waan dhawahay wasax walaal magacaaga noo sheeg magacaygu Cabdinajiib Rashiid Cismaan Cabdinajiib Rashiid Cismaan aad iyo aad ayaan mahadsan tahay waxaan ku weydiinayaa su'aal aan dhalinyarada magaalada Boorama la soo wadaagayay markaas su'aashaas oo ka oranaysa xiraad iyo laaqan maxaa u taqaanaa xiraad iyo laaqan maxaa u taqaanaa
iyo laaqan aniyo horta ka fiirso xiraad iyo laaqan xiraad waxaan u malaynayaa ku rafana la karsado xiraad horta marka koobaad horta marka cunto la cuna loo yaqaan malaynayaa horta bal caadi iska dhig adu gebigaagu ma lagu soo riday warmaya caadi baan halkan marayay soo qabateen waraysuun halkan marayay layne daanu qof halkan marayay ma waraysanee bal horta caadi iska dhig miyaa tagine barnaamijka magaciisa horta la soo eeg barnaamijka magaciisa waxa kaftan iyo qaraaxo adoon ciwaanka loo xanaaqin waaye walaal ma xanaaqsani bay weydiin sax way xiraad iyo laaqan maxaa taqaan hada su'aasha ugu socosho ma yaqaan anu laaqan waxa laaqayo maxaa tiri xiraad iyo laaqan maxaa taqaan xiraad waxaan u aqaan anu horta cunto bariga hore cunta loo yaqaan bal igu cunto baan u yaqaan ma garanaysa laaqana wixii la laaqay weeyaan koleyda wixii la laaqay waa sax aad iyo aad ayuu maasay Najiib Rashiid Cusmaan aad iyo aad ma santahay sad barnaamijka nagala soo qayb gashay